بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamayaa farxad weyn wasiirada xildhibaanada gudoomiyaha degmada Boosaaso mas'uuliyiinta kale ee dawladda isimada nabadoonnada dhalinyarada haweenka gabdhaha quruxda badan oo maanta igu soo dhaweeyay Boosaaso aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waqtiga dheerka badan ay sugayeen waan ka cudur daaranayaa diyaaradaha ayaa waxaad moodaa in soo airport qurux badan inuu dhisnay haddana waxaad moodaa wali inay diyaaraduhu aysan sidii loogu talagalay aysan u iman dalka darteed waxa way taasna waan ka cudur daaranayaa waan u mahadcelinayaa sida ay ugu soo dhaweeyeen magaalada Boosaaso aan ka maqnaa bilihii la soo dhaafay sabab la socotaan anigu safar waxaan aaday fasaxayga sanawiga ahaa waqooyiga Mareykanka ayaan tagay jalidaha dalka reer Puntland iyo Soomaaliyeed waa la kulmay aad baana dalka loo xiiseynay inay ku soo noqdaan bay doonayeen ka bacdina waxaan runtii dawladdu igu casuntay inaan shirka Istanbul aan ka qayb galo oo aan hogaamiyo waftigii dawladda uga qayb galay Istanbul ee dawladda maartay shirkii New Deal-ka shirka siyaasadeed anagu kama qayb galin sababtoo tahay Puntland qaraar bay qaadatay dawladdeeda shacabkeeda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan go'aankaasna international community-na garow ugu yimaadeen wax bay isla qaateen aragti bay midaysan bay yeesheen kamana ay qayb galin siyaasiyan laakiin waxa jiray arrin New Deal-ka oo ogtihiin dhaqaalaha beesha caalamku ay ugu deeqdo Soomaaliya laba jeer baan waxa martigay dhowr mal kalena waxa tagay wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dawlaha waana arrin Soomaaliya oo dhan ka dhaxayso wax isugu jiraan sida darteed marka shirka waxaan uga qayb galay inaan New Deal-ka iyo shirkaas international community-ga ama beesha caalamka wixii markaas loogu talagalay Soomaaliya ay meesha lagu falanqeynayay New Deal-kuna uu dhamaanayaa sanadkan baadkiisa bilaha soo socda waxaana la gelayaa waxay yiraahdaan sustainable development horumar waara ayaa loo gudbayaa iyo gaajada oo la cirib tiro baahida oo la yareeyo sida darteed waxaanu la kulanay hay'ado kala gedisan oo fara badan oo World Bank ka mid yahay USAID ka mid yahay safaaradaha caalamka oo dhan oo dawladaha danaya Soomaaliya intaba si fiican bay noo soo dhaweeyeen roolkan ku lahayna halkaas aanu ka qaadanay runtii warintaasuna si fiican bay noogu soo dhamaatay ka bacdina waxaan ku soo laabtay Dubayna waxaan u soo maray waxa jiray airportka garow oo anigu BIU-da wax la yiraahdo implementation project unit-ka ana mas'uulka uga dawladda Puntland sida darteed qoladii Kuwait oo airportka dhisaysay iyo contractors ayaa qayb ka mid ah ayaa meesha kula kulmay si aan arrinta loo dardargeliyo oo airportka labaad ee Puntland uu sidii loogu talagalay u dhamaado sida darteed waxa way maanta nasiib waxaan u helay inaan ku soo laabto Puntland Soomaaliya aad baan ugu faraxsanahay inaan ugu soo laabto madax waxaan leeyahay oo aan uga faa'iideysanayaa fursadan Puntland waxa ka socda horumar ballaaran oo sida airportka maanta oo igu horeysay nasiib kama aan qayb galin xafladii ballaarayd ee airportka Boosaaso laakiin runtii markaan arkay maanta farxad weyn baa maartay aad iyo aad baan u farxay sidii ahaan jiray iyo sidoo maanta airportkan yahay oo waliba la leeyahay mashruucu sii socon doona seen ula socono maadaama ay horumarkaas baaxadda ballaaran ay ka socdo Puntland waxa lagu keenay unity iyo wadajirkaas inay reer Puntland ila shadaaniin ayaa la doonayaa cid allaale cidii uga faa'iideysanaysa dana shakhsiya ama gaarana waxaan u marayaa Puntland meel bay uga soo wada jeesanaysaa sida darteed waxaan leeyahay Puntland ha guulaysato waxaan jecelahay wixii inta ka dambeeyana kulay wixii googoosa waan sii joogi doonaa Boosaaso hadii Ilaahay idmo waan is wareysanaynaa waan mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.